dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolada Minnesota iyo Ohio waxaa ku nool Soomaali badan inkastoo badankooda ay quutulyoomka la diriraan haddana waxaa jira kuwa fara ku tiris ah oo horumar la taaban karo ku tilaabsaday Maxamuud Cabdi Dacar waxa uu ka mid yahay Soomaalida waqti aan fogeyn ka hor soo galay Mareykanka waxa uu ku guuleystay inuu aasaaso shirkad dhinaca isgaarsiinta ah oo markaasi malaayiin dollar ku fadhida Jacfar Kuukay ayaa booqday xafiiska shirkadda Flexphone oo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio warbixintan ayuuna nooga diyaariyay magacaygu waa Maxamuud Cabdi Dacar anigu waxaan jaamacadeed ku soo high schoolkii waxaan ku soo dhameystay Muqdisho alxigbi Axmed Gurey labada waa soo dhigtay jaamacadeed waxaan ku dhameystay India waxaan qaaday computer science markii hore jaamacadda kadib waxa uu sii watay waxbarashadiisa dhinaca tiknoolajiyadda la xiriidha ilaa uu Mareykanka ka yimaado Hindi ka bacdi waxaan u shaqeyn jiray United Nations oo aan u ahaa system administrator UN ayaa soo qaaday aniga Mareykan keentay Mareykan waxaa imaaday 2014 ayaa imaaday waxaan kusoo degay magaalada North Dakota isaga iyo saaxiibkii oo sharikadan ay wada aasaaseen waxa ay hay'adaha Mareykanka ugu shaqeeyeen dhinaca tiknoolajiyadda ilaa ay iyagu go'aansadaan in ay sharikadooda gaarka dhidbaan markaas ayaa waxay nagu dhalatay aniga wiil kale oo mataqaana wada shaqeyn la yiraahdo Cumar oo asagana maaragtay Boston kamid ah dadkii 911 ka Massachusetts dhan design gareeyay kamid ah oo halkan soo wareeginaan aniga asaga wada kulmno soo markaas ayaan bilaabnay inaan company-gan asaasno maadaama aan aqoonta hayno maadaama aan technology wixii maadaama aan aragna baahi fara badan ay jirto soo markaas ayaan nagu dhalasay inaan company-gan asaasno company-gan aan asaasnay alxamdulillah hadda we have good customers fara badan oo dhan walba nooc walba iskugu jira ayaan haysanaa Flexphone iyada ayaa iskale lambaradeeda gaarka guryaha iyo goobaha ganacsigana gelisa khadka isgaarsiinta iyada oo xarumaha waaweyn ee ganacsiga u fududeysa in ay lambaro badan oo waqti iyo qarash badan uu uga bixi lahaa hal lambar oo hawshii ay 100 line qaban lahaayeen ugu soo kooba company-gan Flexphone waa company telecommunication oo telefoonada wadankan company fara badan ka jiro dadka wadankan jooga waxay garanayaan AT&T oo kale Verizon oo kale T-Mobile oo kale waxaan nahay company lamida service-ka ay qabtaan service lamida aan qabanaa ganacsiga Soomaalida ku dhaqan Mareykanku ay samaystaan intiisa badan uma baahna aqoon iyo waayo aragnimo dheeraada inta badan Soomaalidu waxa ay furtaan maqaayado dukaamo xarumaha caruurta ama dadka da'da ah lagu xanaaneeyo qaarkoodna waxa ay wadayaal ka yihiin tagaasi iyo baabuurta waaweyn ee xamuulka u kala daabusho gobolada dalkan maadaama ay Flexphone la yimaadeen ganacsi aqoon ku dhisan waxa ay mutaysteen abaalmarin company-ga ugu fiicnaa ee sanadkaas soo waxaan ku guuleysan waxaan la imaanay business ka duwan dadka community-geena ay business ay sameeyaan oo kale for example dadku home health care day care transportation iyo business noocyo badan ay ku jiraan iyo xalaalis waxyaabo noocaas oo kale soo annaga laakiin waxaan la imaanay business ka duwan ayaga soo si aan u tusno dadka Soomaalida ee wadankan jooga inay sameyn karaan business walba u baahan yihiin xilliga hadda lagu jiro shaqooyinka sida fudud lagu helo dalkan Mareykanka dhaqaale fiicanna laga dhaxlo waxa ay la xiriiraan tiknoolajiyadda iyaga oo taa ka anbaqaadaya ayay tababar u fidiyaan dhalinyarada hawshaasi danaynaysa si ay suuqa ugu soo biiraan waxaan aad u baawar gareynaa dhalinyarada waxa targetkeenu waa inaan dhalinyaro yar soo saarno tiknoolajiyadan barto ku shaqeeyo soo waxaan sameynaa dhalinyaro badan koorsooyin u dirnaa waa train gareynaa waxaan sameynaa internship aan siinaa qaar ka midna waa shaqaaleysanaa sida dhalinyarada hadda ka arkaysa xafiiska qaar kalena waxaan u dirnaa company kale oo annaga mataqaana contractinal leh sharikadoodu waa ay fiday waxaanay ku faaftay magaalooyin waaweyn oo 30 ku dhow oo dalkan Mareykanka ku yaala hadda waxa uu qorshaysan inay xarumo ka furtaan guud ahaan gobolada kontonka ah ee dalkan Jacfar Kuukay VOA Columbus, Ohio.